وبركاته. marti sharafka iyo ardayda iyo waalidiinta kasoo qayb gashay munaasabadan aad ku quruxda badan waan idin salaamayaa. Salaan kadib saaxiibkay Cabdixakiim markuu isoo wacay oo yiri waxaa ugu casuumayaa xaflad arday qalin jebinayso, waxaan weydiiyey maxay ka qalin jebinayaan. Markaas wuxuu u yiri barashada kombiyuutarka iyo IT-ga maadooyinka quseeya. Aad baan u farxay waana kasoo qayb galaya ayaan ku dhahay, sababtoo ah maadadaasi waa maado aniga si gaar ah saameyn weyn iigu leh, muddo dheerne nolosheeda ka mid ahayd. waa waqtiga aad u gaaban yahay, waxaan rabaa inaad isaya oo 2 daqiiqo soconayso idinkugu soo koobo siday nolosheeda u saameysay, idinkana ay suurtagal u tahay in idin saameyn doonto. Anigoo yar dugsiga qur-aanka dhiganayo oo isaan filayo jalaadka 2 xitaa ma garanaa filaya xilligaasi ayaa adeerkayto soo waday ayuu wuxuu ii geeyey nin deriskeena ahaa oo xilligaasi dadka bari jiray taybinka ama makiinada taybinka. hadda saan filayo makiinadaasi suuqa way ka arki doonaan filayaa cabdilshideey waa laga yaabaa in hal iyo laba aad ka heshid. aniga xilligaasi ma fahamsanaynin ahmiyadda ay leedahay iyo waxaan waxay yihiin iyo siday nolosheeda wax uga tari doonto mustaqbalka, balse wax cusub ayay u ahayd. waana xiiseynayay sidii ayaana bacdulmaqrib markii dugsiga kasoo baxo tegi jiray, sida makiinada 5 furood loogu garaaco lay bari jiray. markii cabaar waday koorsada meel dhexe ii marayso ayaan ka yara caajisay, waan iska dhaafay, kadibna waan u gagambiyey. markii dambe sidii farxa uga qaaday. muddo 10 sano kadib markii aan jaamacadda ka qalin jebinayay anigoo magaalada Nairobi joogo ayaa yar saaxiibkay meel cyber cafe oo ka shaqaynayay anigoo la fadhiyo ayaa qof soo istaagay. kadibna wuxuu yiri warqada ayuu keensaday, wuxuu yiri hala ii type garayo ama hala ii garaaco. yarkii wuxuu yiri qorshaasi ma qaban karo, waxaan dhahay aniga qorshaas aqaanay ii kaadi. waa u qabtay, waa u garaacay, waa u qurxiyey, waa u daabacay. ninkii lacagtii aan kula heshiiyey lacag ka badan ayuu siiyey. meeshaas waxaa iga soo baxday shaqo abuur yar. ma filanaynin xilliga dugsiga qur-aanka dhiganaya wax aan baranayay inay markaasi 10 sano kadib iga fici doonaan. marka meeshaasina fursado kale ayaa iga sii baxay oo meeshii shaqa ayaan ka helay ilaa heer markii dambe cyber cafeegii aniga aan manage garayo muddo 2 sano. marka alxamdulilah waan ku soo liibaanay. idinkana waxaa laga yaabaa hadda inaadan fahansanaynin xirfadaha aad baranaysaan siday noloshiina u saameyn doonaan, laakiin waxaa huwaale wax walba aad barato inaadan ku khasaari doonin. ilaahay juhdiga aad bixiso kuguma khasaariyo. marka tallaabo weyn ayaa qaadeen, waan idinku dhiirigelinayaa. halkiina kasii wada. ustaadku sidoo sheegay waxaad doorateen meeshay dunida u jeedo, meeshay jihada u socoto ayaa doorateen. sidaasi kasii wada. hambalyo ayaa idin leeyahay. soo dhawaada markale.